kusoo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socotaan Bulqaas Media waxaana idinla socodsiinaya Cabdirasaaq Bulqaas. mahadsanid deeqasona madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay maanta inaanu arag wax qorshe ah oo Shiinuhu uu ku doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine. laakiin waxa uu yiri waxa ay noqon lahayd mid la jeclaysto in wakiilada Shiinaha iyo Ukraine ay kulmaan. madaxweyne Zelensky ayaa hadalkiisan waxa uu ku soo beegmaya sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay duulaankii Ruushka ee Ukraine, iyadoo xukuumadda Kiev ay horey u sheegtay rabitaanka kulan noocan oo kala ah. waxaan jeclaan lahayn inaanu la kulanno Shiinaha, ayuu yiri mar uu shir jaraa'id ku qabtay Kiev isagoo la taagan ra'iisul wasaaraha wadanka Spain Pedro Sanchez oo boqosho ku jooga wadankaasi. tani dan ayaa ugu jirta dalka Ukraine, ayuu hadalkiisa intaasi sii raaciyay. geesta kalena ra'iisul wasaarayaasha Denmark iyo Poland oo kulan ku yeeshay magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark ayaa waxay ugu baaqeen wadamada Yurubta galbeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay si deeqsinimo leh ay hub ay ugu deeqaan dalkaasi Ukraine. waxaan jeclaan lahaa in ay la mid noqdaan Denmark iyo Poland isla markaasina ay hub ugu deeqaan wadanka Ukraine, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha wadanka Poland Mateusz Morawiecki oo u sheegay hadalkaasi suxufiyiinta. Poland oo ah xulufo muhiim u ah dalkaasi Ukraine ayaa gacan weyn ka geysatay in xulufada Yurub ay ugu deeqaan qalab culus oo military oo ay ka mid yihiin taangiyo. tallaabadaasi oo ay ka soo horjeesteen dalal dhowr ah ilaa iyo iminka. wasiirka difaaca ee wadanka Ruushka Sergei Shoigu ayaa waxa uu ku eedeeyay reer galbeedka maanta in Ukraine ay u adeegsadeen in ay isku dayaan in ay ku kala gooyaan Ruushka oo ah dalka ugu weyn adduunka dhul ahaan, balse waxa uu sheegay in isku day kasta oo noocaasi ah uu fashilmi doono. wasiir Shoigu oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Vladimir Putin ayaa hadalkani ku sheegay fariin hambaliyo ah oo uu u dirayay ciidamada qalabka sida, isagoo ka qayb galayay bandhig faneed ka dhacayay bartamaha magaalada Moscow kaasi oo lagu xusayay difaaca maalinta dhulka aabaha ee wadanka Ruushka. Israel ayaa waxa ay duqaysay marinka Gaza kadib markii dagaalyahanada Falastiiniyiinta ay dhowr gantaal ay ku tuureen dhulka go'doonsan ee xeebta ah, iyadoo ay jirto xiisad ka dhalatay weerar ay Israel ay ku dishay ugu yaraan 11 Falastiiniyiin ah magaalada Nablus ee daanta galbeed ee la haysto. weeraradan oo dhacay subaxnimadii saaka ayaa sababay qiiq madow oo kor u kacaya. mid ka mid ah goobaha la beegsadayna waxay ahayd waqooyiga magaalada Gaza. qaramada midoobay ayaa waxa ay sare ay u qaadi doontaa gargaarka la gaarsiin doono waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ay gacanta ay ku hayaan mucaaradka maalmaha soo socda si loo caawiyo malaayiinta ay saameeyeen dhulgariirkii ba'naa ee bishan ka dhacay dalkaasi. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sidaasi sheegay. laakiin Muhammad Hadi ayaa waxa uu sheegay in kordhinta qorshaysan ee baabuurta gargaarka oo la gaarsiiyo 40 maalintiiba ay weli ku filnaan laadahay wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee gobolka, iyadoo la siinayo sahayda caafimaad ee lagula dagaalamo cudurrada iyo sidoo kale cunto iyo hoy ku meel gaar ah oo si degdeg ah loogu baahan yahay. booliska dalka Tunisia ayaa maanta xabsiga waxa ay dhigeen Ezzedine Hazgou oo ah nin aad u dhaleeceeya madaxweyne Kais Saied iyo aabaha mucaaradka kale ee caanka ah ninka lagu magacaabo Jawhar bin Mubarak, sida ay sheegtay gabadha Hazgou. booliska ayaa waxaa Hazgou ay ku xireen gurigiisa waxaana ay ka qaateen taleefankiisa. gabadhiisa lagu magacaabo Dahliya bin Mubarak oo ah qareen ayaa taleefan ku sheegtay warkaasi. xarigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo bishan lagu guda jiro olole ka dhan ah mucaaradada kaasi oo lala beegsaday dadka caanka ah ee ka soo horjeeda madaxweyne Saied oo ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka, qabanqaabiyayaasha mudaharaadyada iyo howlwadeennada warbaahinta iyo sidoo kale hogaamiye ganacsi oo saameyn weyn leh iyo 2 garsoore. mas-uuliyiinta dalka Mozambique ayaa waxa ay ka digeen duufaanta Freddy taasi oo la filayo in ay soo gaarto wadanka Koonfur Afrika ku yaala Jimcaha beriya kadib markii ay ugu yaraan 4 qof ay duufaantaasi ay ku soo dishay jasiiradda Madagascar. duufaanta Freddy ayaa ka soo kicitintay koonfur bari Madagascar talaadadii la soo dhaafay, iyadoo ah duufaan aad u kulul xawaare ahaanna ku socota 110 megabyte
waxaana ay burburisay deegaano badan waxaana ay ku soo rogtay daadad iyadoo jeexjeexday saqafyada guryaha kadib markii duufaantani ay ka soo gudubtay kanaalka Mozambique waxaa la filayaa in ay soo gaarto inta u dhaxaysa degmooyinka lagu kala magacaabo Govoro iyo Filanculos ee gobolka Inhambane ee waddanka Mozambique iyadoo duufaantani ay tahay duufaan kulayl badan la filayana maalinta beriya in ay dalkaasi gaarto xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA ayaa bayaan ku sheegay warkaasi hay-adda duulista rayidka ah ee dalkaasi Cumaan ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan CAA ayaa waxa ay maanta ay sheegtay in hawada dowladaha khaliijka carabta ay u furnaan doonto dhammaan diyaaradaha rayidka ah tallaabadaasi oo u sahlaysa diyaaradaha Israel inay isticmaalaan marinka Sacuudiga iyo Cumaan si ay u gooyaan waqtiga dheer ee duulimaadyada marka Asia diyaaradahooda ay u socdaan dalka Sacuudiga oo sida Cumaan oo kale aan xiriir rasmi ah la lahayn Israel ayaa xagaagii hore sheegay in ay hawadeeda ay u furi doonto dhammaan diyaaradaha rakaabka ah balse mas'uuliyiinta Israel ayaa sheegay in marinkaasi aan la hirgelin karin ilaa ay Cumaan ay ogolaato akhyaaray intaasi ayaa waxa inooga eg warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media fadlan haddii aad beedka Bulqaas Media aad ku cusub tahay like-ta iyo followda hanaga ilaawin haddii si aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale hanaga ilaawin in aad share garayso warkan isla markaana wixii comment iyo aaraadaada aad noo reebto waad mahadsantihiin